qaraabada xiriirinteedu booska ay ku jirto ilaahay agtii inay ka tahay min a'zami wasaa'il alqurb waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ee uu kugu jeclaanayo ee raalli kaaga noqonayo ee uu kugu siinayo cimri dheer caafimaad adduun maal risq waasica inay ka mid tahay ama ugu waaweyn tahay qaraabada xiriirinteeda bal quraanka kariimka ilaahay wuu amray dadka oo amar buu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala in loo hoggaansamo uu doonayo in qaraabada la xiriiriyo sunnaha nabigana sala allahu calayhi wasalam sidaas si lamid ay ugu qeexan tahay qur-aanka waxaa ka mid ah aayaadka fi suurati racd aayadda 21aad waladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusala wayakhshawna rabbahum wayakhaafuna suu'a alxisaab ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadka wacan waa kuwa xiriirinaya ilaahay wixii uu amray in ay xiriiriyaan oo la yimaadaan wayakhshawna rabbahum rabbigood bay ka cabsanayaan wayakaafuuna suu'a alxisaab waxay ka cabsanayaan xisaabta maalinta yowm alqiyaama xisaab xun inay ku dhacdo xisaab xun inay asiibto oo ay ku dhacdo ayay ka cabsanayaan maalinta qiyaame oo musiibo ku dhacdo ayay ka baqayaan haddii ay weydaartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ka doonayay sheekh naasir asicdi tafsiirkiisa taysiiru lkaliim almannaan marka uu fasiraya aayaddan wuxuu leeyahay sheekhu aayaddani arrinkan ilaahay uu leeyahay waa kuwa xidhiidhinaya wixii ilaahay uu amray in la xidhiidhiyo waa caam arrintaas waxaana ay soo gudagelaysaa wax walba oo ilaahay uu amray xidhiidhinteeda subxaanahu wa tacaala oo uu ka mid yahay iimaankii ilaahay la rumaynayay iyo wixii uu watay oo dhan oo lala yimaado in loo hoggaansamo ilaahay cibaadadiisa keligii aan cidna waxba loogu darin rasuulka taacada la adeecayo calayhi salaatu wasalaam xiriirinta la xiriirinayo aabbayaasha aabbaha adeerka awowga la xiriirinayo aabbayaasha hooyooyinka hooyo ayeeyo habaryar iyo wixii la taxalluqa la xiriirinayo loo baarinimo samaynayo xagga qowlka iyo xagga ficilka aan caaq iyo caasinimo lagu noqonaynin qaraabada iyo riximkii oo la xiriirinayo loo ixsaan falayo qowl iyo ficilba ninka iyo xaaskiisa oo dadka isugu dhow ka mid ah uu si wacan xaaskiisa u xidhiidhinayo oo u dhaqanayo awlaadiisii uu si fiican u hagaajinayo xuquuqdoodii gudanayo xagga adduunka iyo xagga diinta intaas oo dhami waa soo gelaysa aayaddu waa caam buu leeyahy sababta marka qofkan in uu xidhiidhiyo wixii ilaahay u amray sababta keenaysaa maxay tahay sababta keenaysaa waxaa weeye ilaahay buu ka cabsanaya wayakhshawna rabbahum baa ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigood bay ka baqayaan saasaa keenaysa inay xidhiidhiyaan aayadda labaad fi suurati muxamed aayadda 22 fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lard وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إلهي وحكي الله يا آيات سيما واحد مدنتهين هدي أقولك مسؤول النقطان تفاسير إذا كم تاي وأرلدي إذنكم مضح مسؤولين كان نقطان أقولك إنا فسهادسان ورحم كيني قويسان هو مركي أمد ثلاثة أقبتان أقولك فسهادية وحق الدين تأي أخلاق ضبع حمية رحم كودنا قوية كواس إلهي ونعضلي إلهي سبحانه وتعالى إن دها إيدقهنا حق إن يكون مقلان أو كأركان إلهي واتري سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية لواتنية تضوى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون حيل هاي الماما يا ضد خساري وملح النرشو دي كدن بيسي آخرنا إلهي هرتي ملح تجدون
كواسي واكوه وكوه برينيا بلنك إلهي سبحانه وتعالى مركي لا أتكيي وبلنكم محوية إلهي مركو مخلوقات كان في عالم الذر الله أبو ريح كيري ألست بربكم سو ربي مائه ها عبادتي إلهي مركو أدونك إلهي كياني بي ضفيرين وإلهي عابدان بي ديدين بلانتي بي كبحين وحي إلهي وأمرين لحريرينا ويقويين ملكي نواف سهاديين ومعاسي حمان أخلاق حمو الدين يريه بيكوف سهاديين أولئك هم الخاسرون وأوركوا لي والله صوروا لي الله وعليه كواسي كوا خساروي وإياك أمبو على الله سبحانه وتعالى عاد مركو حيت الماميسا قيبت اللبات خطرت أيليرا قوينت اللي قويو وحي إلهي ويريه هلا حريري وأمره سبحانه وتعالى معاكم إذا وحاس مرك وحكم إذا وحينا قلبتك هلا إنه صلة الرحم أما صلة الأرحام قرابة حريرين تيدي قرابة حريرين مرك يا كنت المامن يا قرابة قويسة وحا قرابة قويسة دتك فاسقين تا فاسقين تا إلهي كفو قادي إطاعدي سكتغي كواسا قرابة أقونين عاقبة ذو محين قونيسا يعرب دون بيت كودو خسارة كدن بينيهم أولئك هم الخاسرون عند حكتا كو شيء سيكون الرميسا وأيوه وإلهي سبحانه وتعالى حق السنة النبي صلى الله عليه وسلم ودين القرآن كفتح ذا آية ضربك كوبنو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعائشة في صحيح مسلم وهي تري رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش رحمتي ووحدتك اسكو حنية كدحية dadka isku riximka ah ee wada dhashay ee dalmada iyo riximnimadaasi xiriirisay ilaahay riximkii markuu abuuray ee xuquuqda uu makhluuqaadkiisa u qaybinayay ayay carshiga ilaahay qabsatay taqulu markaasa way cabanaysaa markaasa Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala miyaanu kugu filnayn inaan xiriiriyo cidii ku xiriirisa inaan gooyo cidii ku gooysa من وصلني وصله الله قفكي حريري الله حريري ومن قطعني قطعه الله كي يقولنا الله قوي هذا الكاس قول منعيا إلهي رحمك اسويدار سنيان الدنيا انت لفيرين با والله ابورين وددك لكينين وان لسكوها جاتشنين وي وركن وحو كدعيا عالم كسريع يعرش يكتسو كسعودا markii ilaahay xuquuqaha qaybiyay baa waxa istaagay riximkii oo muuqaal ah oo ilaahay arkayo waxa inooga waramaya rasuulka inoo soo talinaya xogtana inaguna de waa rumaynaynaayo iimaanka ay rumaysanahay diinteenay ka mid tahay markaasaa ilaahay wuxuu yidhi qaraabo xiriirinay iyo riximo miyaanay kugu filnayn inaan qofkii ku xiriiriyana adduun iyo aakhiraba xiriiriyo kii ku gooyana adduun iyo aakhiraba aan gooyo ها إله هو يقول فيني مركاسي هذا شو واحد قرابتي رحم كحريرنتيسي يلا مقال لك صدقي قفكي حريري الله حريري قفكي يقوينا إله يقو أيهتي حديثك الإمام مسلم بخاري صارين حديثك أبي هريرة إن الله خلق الخلق حديثك صفة عن قيحية وفهفهي إلهي خلق يجيب أبوري حتى إذا فرغ من خلقه إلى إلهي أدميي خلقك أبور كيسي قالت الرحم رحم كبا وحي تري انت استاكتي هذا مقام العائد بك من الخطيئة هل كان أنتاغنا إلهي وميلو استاغو قف أديك كامل قليا إن لقويه عيد أديك إن لقويه مركا الدنيا ولا تغو وآدم يولد كيسين لقيه وضدكو ترمان عد بقدين قبتها شفته وأنيق بقدين بان قبا بني آدم كاس أدونك كتر مدونا عد وحنا قد حيصير رحم كائنة يقويان بان كبقيا يا بلحر ولا إمارين دونتو سيدا أوجد ناشن أنت أجانا أذان كم مجان قليا إنا اللي يقوينين مركاسا وحا إلهي أوير نعم ها وصح ناشا تاجنتهاي وقصح أنتها إنا دي مجان قشو إنا اللي يقوين أما ترضينا ميانا رالك وهين إلهي والله الله سبحانه وتعالى أن أصل من وصلك إن الحريري يعدك حريرسا
وأقطع من قطعك إن أنقو يعديك قويسة. قالت بلى يا رب، ها ربي غالبا قوة. قال فهو لك كاسد لذا قلب كاسان كسيي كاسد لذا. مركز النبي صلى الله عليه وسلم مركو انتهى الشيء أيو آيات دي مركي دويدا إنو أخرين سورة محمد أيو رسولك أخري عليه الصلاة والسلام فاقرأوا إن شئتم هذا دونتان أخرية بإلهي سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.